waa mar kale iyo barnaamijkeena talo dhakhtar waxaan ku soo qaadan doonaa 4 cunto oo ay dhakhaatiirtu ku taliyaan in la cuno maalin kasta. Cuntada aynu cunnaa waa halka uu ka bilowdo caafimaadkeena. Cuntada aynu cunnaa waa halka uu ka bilowdo caafimaadkeena runtii. Iyada ayaa sabab u noqon karta caafimaad darro ka dhalan karta miisaan dheeraad ah iyo noocyo badan oo xanuunada ka mid ah iyo caafimaadka oo wanaagsanaada labadaba. Waxaa jira cuntooyin uu inta badan cilmigu ku taliyo in la caadeysto cunistooda si uu jidhka uga helo faa'iidooyin nafaqo muhiim ah oo ay leeyihiin. Waxa kaloo iyaduna muhiim ah in cuntooyinka aynu cunayna ay noqdaan noocyo kala duwan. Qormadan waxaan ku eegaynaa 4 nooc oo ka mid ah cuntooyinka ay khubarada caafimaadku sheegaan in qasab tahay in maalin kasta wax ka cunno ugu yaraan nooc ka mid ah. Waxa ugu horeeya digaaga. Digaagu waxa uu ka mid yahay cuntooyinka caafimaadka u fiican, gaar ahaan hilibkeeda ku yaala shafka oo aynu uga jeedno inta ka soo hadha labada lugood iyo garbaha. Hilibka halkan laga soo jaraa waxa uu si gaar ah ugu fiican yahay dadka ku jira isxamaynta ay miisaanka kula dagaalamayaan. Waxa uu ka kooban yahay borotiinno saafi ah, dufankuna aad ayuu ugu yar yahay. Sidoo kale hilibka digaaga ee intan dhexe ku yaala waa cad caloosha u fudud oo casho fudud noqon kara. Sidaa awgeed waxa ay xeeldheerayaasha nafaqadu ku taliyaan in la cuno hilibka digaaga. Koostada. Caleenta koostada waxay ka mid tahay khudradda cagaaran ee ay dhakhaatiirtu ku talinayaan in aynu maalin kasta hal mar cunno. Waxay xoojisaa xusuusta, waxay ka hortagtaa miisaanka dheeraadka ah, waxaanay u fiican tahay caafimaadka dheefshiidka. Waxaa intaasba ka sii muhiimsan in koostadu ay ku jirto maadada loo yaqaan lutein oo muhiimad aad weyn u leh shaqooyinka maskaxda, kana hortagta in unugyadeennu aanay burburin ama hawlgabin. Liinbaydariintu waxay ka mid tahay ama ay hodan ku tahay vitamin Z iyo maadada loo yaqaan pectin oo ka mid ah ganka lakabka ku ah darbiyada unugyada dhirta. Liinbaydariintu waxay leedahay faa'iidooyin badan oo caafimaad. Waxaa ka mid ah dufanka, cholesterolka oo ay jidhka ku yarayso. Sidoo kale waxa ay wanaajisaa xaddiga sokorta dhiigga ku lamaan. Kalluunka salmonka loo yaqaan ama salmon fish loo yaqaan. Noocyada kalluunka badankoodu waxa ay hodan ku yihiin maadooyinka magnesium iyo phosphorus. Laakiin kalluunka salmonka loo yaqaan ayaa lagu tiriyaa inuu yahay kalluunka ugu fiican noocyada kalluunka. Sababtuna waa in xaddiga maadada magnesium ee ku jira uu ka badan yahay kalluumada kale oo dhan. Maadadan ayaa u wanaagsan shaqada habdhiska dareenwadayaasha. Magnesium oo jidhka ku yaraata waxay sababtaa xaalado ay ka mid yihiin daal iyo burbur jidheed oo joogto ah iyo muruqyada iyo neerfayaasha oo isku urura ama guntama. aad iyo aad baad mahadsantihiin.